asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waa idi wada salaamay walaalaha ku xiran janaalkeena Zack Multimedia. Maanta muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinkula wadaago layers switches maxayse qabtaan baranadaasi. Runtii waxa wanaagsan shay walba markaad baranayso in aad wax aad ka ogaato waxa ay qabanayaan si ay kuugu fududaato waxyaabaha kale aad adiga ku samayn lahayd. Marka waana cashirkii afaraad ee aan ka samaynayo Adobe After Effects. Marka ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta ugu horreyn waxaan soo furanaynaa Adobe After Effects-geena ayaan soo furanaynaa. Marka ugu horeyso markaan Adobe After Effects aan sidan u soo furano layer switches maxaa la dhahaa sida u jeedo waa badhanadan meeshan kaga soo yara muuqdo kuwani ayaa waxaa loogu magacaabaa layers switches. Haddii aad tagto dhanka layerskana kadibna aad kasii doorato switches sida u jeedo dhammaan waad ka helaysaa waxyaabaha oo dhan badhanadan inta saaran waad ka helaysaa ayadoo magac ahaan ay way yar wataan. Laakiin anaga hadda waxaan rabnaa inaan dhammaan aan fahmno kuwani badhanadani. Runtii waxaa dhici karta in mararka qaarkood aysan badhanadan meeshan kaga soo yar muuqan kaliya waxaad fikta saaranaysaa jeegaasi oo ku qoranta expand or collapse layer the layer switches panel. Midkan kaliya ayaad yara daaraysaa sababtoo ah badhanadan kalena waxay ku sameynayaan tusaale ahaan track matka oo kale ayay ku soo yara darayaan. Haddaad kana kasii doorato timeline-kaaga wuu kaasii yaraanayaa oo kuwan oo inta badan muhiim sidaas ma ahan oo durationka in iyo out videogaaga meeshuu ka bilaabanayo iyo meeshuu ku dhammaanayo iyo waqtigoo soconayo iyo kan stretch-kan wuxuu kuu sameynaya in video durationkana uu sii kordhiyo slow motion iyo fast motion uu geliyo. Laakiin hadda qaybtani uma baahni oo in iyo out-kaani kaliya waxaan rabnaa expand or collapse-gaas ayaan rabnaa labadan kale aan iska soo xirno. Qodobka ugu horeeya aan rabno inaan sharaxno waxay tahay marka ugu horeyso badhankani muxuu u taagan yahay video hiding-kani. Runtii video hiding-kani qof walba way fahmi kartaa waxay u taagan tahay kaliya waxa waaye waxa layer properties-kani kuugu jiro ayuu kaa qarinayaa. Tusaale ahaan wuxuu ka qarinayaa screen preview-gani ayuu ka qarinayaa. Tusaalahan sawirkan ayaa hadda eertan igu soo horeeyo haddaan badhankiisa elegtaas aan taabto sawirkii sidaasi waa nagala qarinaya balse layerkaasi wuu ka soo yara muuqdaa dhanka iyo timeline-ka sida u jeedo weli uu taagan yahay oo hiding lama saarin kaliya aragtidiisa ayaa la yara qariyay. Marka badhankan waxaad u adeegsan kartaa waxyaabaha qaarkood aadan u baahnayn in screen-ka markaasi kaaga soo muuqan. Sidoo kale badhankani waa audio mode-ka wuxuu ugu sameynayaa tusaale ahaan haddii video aad soo geliso cod wata misna codkaasi aadan doonayn inaad maqasho kaliya badhankaasi ayaa taabanaysaa. Tusaale ahaan haddaa hadeertaan hal video aan soo gashano oo videogani ayaa cod yar wato video walba cod wato waxaad ku ogaanaysaa mar allaala markaad kilig aad ku siiso sida u jeedo waveska oo codka inta ayuu kugu soo bandhigayaa. Adiga hadda marka waan soo yaraynayna waxaan keenaynaa dhanka layer properties-ka. Sida u jeedo haddii videoga uu cod wato isla layerkaasi ayuu wuxuu kuu soo bandhigayaa audio boxkiisa ayuu kuu soo bandhigayaa. Laakiin hadduusan cod wadanin tusaaleaan midkan oo kale sida u jeedo videogan wax cod ah ma wato. Haddii uu cod wadan lahayna qaybtan ayuu ka soo yara muuqan lahay. Marka kan kore aan iska delete gareyn aan doorano kadibna delete. Kaliya marka wuxuu kuu sameynayaa haddii audio boxkaasi aad jeega ka qaado oo videogaaga play aad dhahdo wax cod ah kuma soo gudbinayo programkani. qaybtaasi waan isla yara fahmnay sida u jeedo hadda videogani xoogaa yar codkiisa ma doonayo inaan hadeertaan daaro laakiin adiga waad tijaabin kartaa oo video cod leh mar alaala markaad soo geliso kadibna jeegaasi aad ka qaado wax cod ah kuma soo gudbinayo. Marka haddii aan gudagalno badhankeena saddexaad oo ah solo. Sologani muxuu noo qaban karaa runtii haddaad doonayso inaad si wanaagsan aad u fahanto sologan haddaad mid kaliya oo layerkani haddaad fikta saarto aad laba mar kilig aad siiso waxa screen preview-ga saaran dhan waxaa ka soo muuqanayo midka aad fikta saartay. Marka sidaad u fahanto tusaale aan hadeertan waxaan abuuranaynaa solid color waxaan leenahay right click new kadibna waxaan kasii dooranaynaa solid color tusaale ahaan adiga color guduud oo kale kadibna okay ayaan leenahay. Hadeertan sidaa u jeedo sawirkeeni iyo shape ayaa meeshani noogu yara sameysan. Tusaale aan waxaan rabnaa sawirkani kaliga inuu noogu soo yar muuqdo screen preview-ga kaliya waxaan sameynayaa sawirka ayaan laba jeer ayaan waxaan saarayaa qaybta sologa asigoo ku aadan boxkiisi ayaa waxaan leeyahay double click sida u jeedo midka red-ka ah sidaasi ayaa nagula qarinaya. Kaliya marka wuxuu kaa saacidayaa waxyaabaha screen preview-ga faraha badan aadan doonin inay kaaga soo muuqdaan
kaliya ayaad waxaad saaraysaa midka kaliya aad rabto inuu kaaga soo yaro muuqdo ayaad ficta saaraysaa. Marka sologaasna sidaasi ayaa loo adeegsadaa. Sidoo kale intaan kan aan iska delete gareynin kan aan ficta aan ka qaado si oo noogu soo yaro muuqdo. Sidoo kale boxkani afaraad waa lock. Wuxuu kuu sameynaya shay inuu uu kuu xiro oo aadan doonin inuu dhaqdhaqaaqo. Tusaale ahaan meeshan haddeertaan waxaa noogu yara samaysan solid color. Tusaale ahaan marka solid colorkan waa dhaqdhaqaaji karnaa meesha rabna haddeertaan waan geyn karnaa. Laakiin shaygani sidee ayaad u xiri kartaa? Kaliya buttonka uu ku aadan yahay qaybtiisa looga ah ayaad ficta saaraysaa. Haddeertaan si kasto kuma dhaqaaqayo kaliya waxaa dhaqaaqayo shayga kale ka yara dambeeyo ayaa sidaasi ku yara dhaqaaqaya. Marka haddeertaani kan aan ficta aan ka qaado oo solid colorka sidaasna aan ku delete gareyno. Marka hadda sidaani aan ku delete gareyno sidoo kale boxkeeni afraad waa label. Labelkan kaliya wuxuu kuu sameynayaa in waxyaabahan inta ku yara jira in uu color uu kugu yeelo oo qaybtiisa kaliya ku yara aadan. Tusaale hadda labelka aad ku dhufato labelkan kan hada ku dhufato blue ayaan rabaa hadaad dhahdo color blue ayuu kaaga dhigayaa. Hadaad asaga ku sii yara dhufato pink ayaan rabaa sidaas ayuu kaaga sii yara dhigayaa. Marka waa colors oo adiga meesha sii yar qurxinayo oo sidaas wax u sii yar weyn ah ma ahan. Source name kani magaca tusaale haddii A to Z oo kale wax ay u ka koloreeyaan last name source name double click waxa marka isbedel xoogaa yar sidii u kala horeeyaan qaarkood inuu kugu soo bandhiga ayaa laga yaabaa oo qaybtaasi sidaasi muhiim uma sii yara ahan. Marka waxaan isla soo fahmnay shantaadi button ayaan isla soo fahmnay wax ay noo qabanayaan. Shay buttonkani muxuu noo qabanayaa? Shay buttonkan sidoo definitionka kugu yar siinayo kaliya wuxuu ka qarinayaa layerka timelineka ayuu ka qarinayaa laakiin previewgiisa weli wuu taagnaanayaa. Tusaale ahaan midkani wuxuu noo yara sameynayay in shaygani uu screen preview uu ka qariyo kan markaan ficta ka qaadno screen previewga sawirkii hadda waa nagala yara qariyay laakiin weli layerkiisa wuu taagan yahay. Shayga aan ficta ka qaadnay weli layerkiisu waxa ku yara jiraa timelineka laakiin halka shay buttonka uu kaga duwan yahay waxay tahay in gebi ahaanba laga qariyo layerkani timelineka. Kaliya asaga ayaad ku dhufanaysaa hal jeer ayaad click siinaysaa. Markaad hal jeer click aad siiso kaliya marka waxaad ku dhufanaysaa hide all layers from the switch kadibna click ayaad ku siinaysaa. Sida u jeedo meeshan waxaa nagala qariyay layerkii haddeertaani oo sawirkan ah layerkiisa waa nagala yara qariyay. Haddii aad rabto inaad soo muujiso kaliya buttonkaasi ayaad click ku siinaysaa kadibna meeshaasi ayaa sidiisa hore ku soo yar celinaysaa. Waa intaas oo kaliya. Marka shay buttonka wuxuu qaabilsan yahay in uu shay uu ka qariyo timelineka gudihiisa. Kana wuxuu qaabilsan yahay screen previewga in uu shaygan gebi ahaantiisaba uu ka qariyo. Sidaad u jeedana bilcagsi ayay isku yar yihiin labadani button. Sidoo kale qaybtani ayaan rabnaa in aan gudagalno oo lagu magacaabo collapse transform for the factor layer and rasterize. Buttonkani kale muxuu kuu qabanayaa? Haddii haddeertaani aan samaysano tusaale ahaan solid colorka right click aan ku siino new kadibna solid color kadib tusaale 300 aan ka yara dhigno shape-kani aan zaid aan u soo weyneyno sida u jeedo meeshani mar alaala markaan shape-ka aan xoogaa zoom aan soo dhahno sida u jeedo geesihiisa ma ahan mid quality leh. Sida u jeedo markaa kusoo dhaweyno geesahan sida u jeedo quality-gooda wuu lumay. Sida muuqaal hore aan kaga soo hadalnay wax farqi u dhaxeeya rasterize iyo vector. Vectorka si kasta aad ugu soo dhaweyso isma bedelayo quality-giisa laakiin halka isbedelayo rasterize-ka markaad ku soo yarabeyso quality-giisa sidaan ayuu u yara dhumayaa. Waayo markiisa hore shaygan markaan sidiisa aan sameynayna hadda si kasta zoom aan ugu soo dhaweyno sidaan ma uusan naqaninin. Waxa keenaya waxay tahay rasterize-ka ayaa sidaan keenayo. Marka sidee ayaad liisha aad meeshan ugu dhigi lahayd aad vector aad ugu dhigi lahayd? Kaliya waxaad taabanaysaa buttonkaasi qaybta kaliya uu ku aadan yahay ayaad click siinaysaa. Markaad click aad siiso sida u jeedo qaybtan si liisha ah ayaa lagaaga dhigayaa. Waayo waxaa laga bedelayaa rasterize-ka waxaana loo bedelayaa vectorka. Vectorka waa inta badan waxyaabaha logooyinka lagu sameeyo oo Adobe Illustrator-ka uu ku shaqeeyo laakiin halka Photoshop-ka uu ku shaqeeyo rasterize layerka uu ku shaqeeyo kanna wuxuu kuugu bedelayaa shay rasterize ah ayuu wuxuu kuugu bedelayaa vector. Marka inaad fahanteen ayaan rajeynayaa shaygaas buttonkaasi wuxuu uu qabanayo. Sidoo kale haddii aan kan aan iska soo delete gareyno fitkaas aan furno 400kaas aan furno oo zoomka ah kadibna fit aan ka doorano sidoo kale buttonkani oo quality-ga muxuu noo qaban karaa oo muxuu faa'iido leeyahay? Haddii aad soo aragtay markaan Photoshop-ka aan joognay markaad rabto inaad sawir quality-giisa aad kordhiso waxaan adeegsan jirnay image size-ka ayaan xoogaa sare aan u qaadi jirnay.
marka hore waxaad tegaysaa layer kadibna aad kasii doorato quality sida ujeedo besty drafty wave iyo bilinear marka bilinearkan ayaa quality inta badan ugu wanaagsan calaamadan markay sidaan ay tahay calaamadan markay sidaan oo ka ay tahay waxa loo yaqaanaa bilinear marka sidee ayaad ku ogaan kartaa inay bilinear ay tahay waxaad tegaysaa marka hore asaga dooro layerka kadibna layer tag kadibna quality bilinear ayaa ficta ku sar hadaad b cubic aad ka dhigto calaamada sidaan ay isku sii yara bedelaysaa markas maxaase uu faa'iido leeyahay mar allaan markaan xoogaa zoomka aan kusoo yara dhaweyno sida ujeedo sawirka edgeskiisa geesihiisa markaan yara bedelno isbedel yar ayaan ka arkaynaa sida ujeedo kan zigzag line oo kale ayuu u sameynayaa sida ujeedo edgeska sawirka qualitygana wuu ku yara dheelayaa haddartaan haddii aan sameyno haddii oo bilinearkiisa aan ku soo celino sidaan ayuu noqonayaa b cubic haddaan ka dhigna sidaan ayuu ku soo celinayaa haddaan draft aan ka dhignana sawirka sidaan ayuu ugu yara dheelaya waa keliya marka waxaad tagaysaa si marka aad ku kala ogaato practicalkooda keliya layer ayaad tagaysaa kadibna quality hadda sidaa ujeedo waa drafty waxay cagsi ku tahay dhanka iyo bestiga waayo bestiga sidaan ayuu calaamadiisa ahay sidaan oo kale oo kan ka hooseeya layerkaas oo kale camal ayuu ahay laakiin wuxuu mar walba isaga uu focus ka saaraya sawirka qualitygiisa mar walba marka waxaa wanaagsan calaamada inay sidaan ay ahaato oo bilinearkaasi inay ahaato oo waxyaabo nose oo kale inuu soo geliyo uu qoriyo sawirka qualitygiisa marka kan waan isla soo fahnay qodobkan kale ffxka wuxuu qaabilsan yahay effect walbo lagu soo yara daro in aad ka qaadi karto si fudud adigoo effectkaasi aad control aadan galin tusaale hadda sawirkaani ayaan waxaan rabnaa inaan blur ku darno waxaan tagaynaa kaliya asaga ayaan dooranaynaa marka ugu horeyso kadibna waxaan kasii tagaynaa effect kadibna waxaan kasii tagaynaa meesha ay ku qoran tahay blur and sharpness kadibna waxaan kasii dooranaynaa Gaussian blur markaan Gaussian blur aan ka doorano xoogaa project renderingka dhanka iyo GPU ayuu wax igaga soo saaray render using only software sida ujeedo haddeertaan waxaan saaray Gaussian blurka ayaan blurnesskiisa ayaa waxaan sameeyey 0 ayuu ahay waxaan ka yara dhigay 27 sida ujeedo sawirkayga markiis hore sidaa ma uusan ahayn haddii aan rabo effectigan blurka inaan ka qaado kaliya ffxkaasi ayaan ficta ka qaadaya sawirkayga clearkiis hore ayuu noqonayaa balse haddii aan rabo inaan effectigaasi sidiisa oo igu yara jirana kaliya waxaan taabanayaa ffxkaasi boxkiisa ayaan click siinaya marka sidaasi ayaa noogula saaraya effectigaasi sida ffxkaas ay kugu soo sheegay wuxuu kaliya focus ka saaraya effect walba aad soo geliso haddii aad rabto inaad ka qaado iyo haddii aad rabto inuu kuu sii yara joogo effectigaasi haddii aad rabto inuu kuu sii yara joogo kaliya boxkaasi ayaad click siinaysaa tani waxay ku cadeynaysaa in effect boxkaasi uu soo galay laakiin haddii qaybtan wax box la saaro aysan ku jirin effect kuma jiro marka anaga hadda blurkaasi uma rabno boxkan kale muxuu kuu qabanaya frame blendingka runtii laba ayuu u qaybsamaa asaga waa mid ah frame mix iyo mid kale ah pixel motion waxaa inta badan wanaagsan pixel motionka ayaa wuxuu ku siinaya result aad iyo aad u wanaagsan laakiin halka frame mixedka asagana uu wanaagsan yahay laakiin xagga renderingka ayuu kaga wanaagsan tusaale ahaan badankan sidaan u fahmno waxa uu qabto kaliya waxaan soo gashanaynaa videogani ayaan soo gashanaynaa oo qaybtan timelineka ayaan yar keensanaynaa frame blendingka markaani ficta ayuu noo saarmayaa markaani uu active garaysmaya sidaad ujeedaan haddii hadeertaani aan ficta aan saarno frame blendingka laba ayuu qaybsamaa marka ugu horeyso midna waxaa waaye frame mix iyo pixel motion asagana intee ayaad ka ogaan kartaa kaliya waxaad tagaysaa dhanka iyo layerska kadibna frame blending aniga hadda sidaa ujeedo offka ayaa inta badan isticmaala oo frame mixed iyo pixel motionka inta badan ma isticmaalo labadan farqiga u dhexeeya ayaa waxay tahay frame mixedka videogaaga markaad rendering garaynayso aad iyo aad ayuu u fududyahay oo waqti yar ayuu qaadanayaa laakiin pixel motionka markii 2 frames walba uu dhaqaaqo wuxuu soo gelinayaa motion oo xoogaa yar waxyaabo motion oo kale ayuu soo gelinayaa oo sidaas uma sii yara wanaagsan asaga haddeertaan aan saarno tusaaleaan pixel motionka markaan saarno sidaa ujeedo xoogaa yar kadib markaa videogaaga balay aad dhahdo waxaad ku arkaysaa waxyaabaha zaa'idka speed ku ah ayaa inta badan lagu garan karaa markaad ku yara daarto in uu motion soo gelinayo laakiin frame mixedka wuxuu asagana uu aad iyo aad ugu fiican yahay markaad rendering garaynayso fast ayaad ka yara dareemaysaa frame blendingka iyo framekaasi sidaasi ayaa inta badan loo yara adeegsadaa marka videogan hadda inta aan ka yara bixino waxaan rabnaa inaan kala ogaano motion blurkani muxuuse qaabilsan yahay tusaalahaan haddaad doonayso motion blurkani wuxuu qaabilsan yahay kaliya waxaan samaysanaynaa solid color
right click ayaan leenahay kadibna new kadibna solid color adiga colorkaani okay ayaan iska yar dhahaynaa tusaale ahaan sheegani hadda on solid colorka aan samaysanay wax dhaqdhaqaaq ah kuma jiro haddii aad doonayso inaad dhaqdhaqaaq geliso cashir hore ayaan kaga soo hadalnay oo motioniska ku saabsan cashirkaasi ayaad booqanaysaa marka ugu horeyso midkan inta ayaan arkeenno kadibna motion ayaan gelinaynaa xoogaa yar transformkiisa ayaan furaynaa kadib waxaan rabnaa sheygan inuu inta ka dhaqaaqo oo inta sidaas ku yara tago kaliya positionka ayaan keyframekiisa yara daaraynaa markaan keyframekiisa aan daaran xoogaa yar seconds yar ayaan kasoo yara baxaynaa shift ayaan la qabanaynaa hal mar ayaad click yar soo jiidanaysaa kadib shift ayaad la qabanaysaa wuxuu kuu sameynayaa straight line ayuu kuu sameynayaa shiftiga la qabo marnaba shiftiga ha ka ilaabin tusaale marka waa kan sheegani inta ayuu kasoo dhaqaaqay inta ayuuna tagay marka inta sheegani uu socdo sheygan marka inta uu socdo wax motion ah ma sameynayo motion blurka lagu sheegayo waxa waaye sheygan intuu socdo xoogaar geesihiisa wax motion ah inuu ka sameeyo tusaale ahaan hadda fiiri wuu socda sheyga laakiin wax motion ah ma wato haddii aad rabto inaad ogaato motionkan wuxuu ku qabanayo kaliya badankiisa ayaad daaranaysaa markaad daarato marka waxaad dareemaysaa farka fiiri intuu socdo sheygan uu motionka uu ku jiro waxaa geesihiisa soo galayo waxyaabo bulur oo kale ayaa soo yara galayo marka intuu dhaqdhaqaaq sameynaya sida markii gaarida oo soconayaan oo kale lagu sameynayo Adobe After Effects ayaa inta badan lagu yara arkaa motion blurkani sheygan kaliya wuxuu qaabilsan yahay intuu sheyga uu yara socdo in uu geesihiisa wax motion blur inuu soo geliyo waxa inuu soconayo inuu cadeeyo laakiin markuu meeshiisa uu tago sheegani wuu joojinayaa blurka uu waday marka kaasi sidaasi ayaa loo adeegsadaa motion blurkaasi labadan badhan adjustment layer iyo 3D-ga wuxuu u baahan tahay muuqaalo gooni ah in laga soo yara sameeyo waayo muuqaalkan ayaa aad usii dheeraanayo aagana ka shaqsi ahaantood waxaan doonayaa inaan si guud aan u fahamno waxa zaa'idka ay qabanayaan marka insha Allah marka muuqaal gooni ah ayaan ka soo sameyn doonaa adjustment layerkaasi iyo 3D-ga marka waxaan rajayn doonaa inaan muuqaalkani aad ugu faa'iideen marka insha Allah muuqaalkan intaan ayaan kusoo gabagabeynaya fadlan haddii ay tahay booqashadaada ugu horeysa adna soo booqatay fadlan channelka subscribe saar fura calaamada gambaleelka si ay kugu soo yara dhaca muuqaal walba aan soo gelino oo channelkan inta badan waxaan uga hadlaa arrimaha multimedia haddaad videogan ka faa'iidayna la garay si YouTube-ka videogan usii faafiso una sii gaarsiiso walaalahay kale lana wadaagna asxaabtaada muuqaalkan si ay kana ugu yara faa'iidaystaan ugu dambeyntiin waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh waa inoo muuqaal kale oo xiiso badan